السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وحالي يرادا أحمد عبد الله مادي وحنا هاي لوير أما قرن أما أفوكاتو أما شرعي يقان نبصدو يقانه waxaan shaqeeyaa hay'adda la yiraahdo Mid Minnesota Legal Aid waa looyariin isu tageen oo isbahaysteen oo dadka caawiyaan su'aalo badan baa la soo weydiiyay oo ku xisaabsan public charge ama sharciga oo ninka madaxweynaha Trump oo hadda wadanka haysta ayuu soo dejiyay sida looga ciqaabo ama lagu dhibo dadka wadanka soo galayeen ama dadka wadanka joogan oo sharci qaadanayeen su-aasha ugu horeysa oo la weydiiyay waxay ahayd public charge-ka muxuu yahay sidaan sheegay waa sharciga la soo baasmariyay oo ka socda dhinaca hadda dawladda haysata Mareykanka looga talagalay dadka sharciyada qaadanayeen in maarta sharci looga diido si ay Mareykanka u joogaan sharcigan waxaa looga talagalay inuu saameyn ku yeeshto dadka oo wadanka joogan oo wadani ahayn ama aan u dhalanin oo imaadaan oo soo haajiraan sida dadka viisada ku imaadaan sida dadka qaxootiga oo wadanka imaadaan ama dadka asylum-ka ama nabadgelyada weydiistaan markay wadanka soo galaan su'aalo badan baa la weydiiyay oo dadkii hadda sida green card-ka ama lawful permanent resident sida loo yaqaan ku joogan oo wali sharciga weyn qaadanin waxay weydiiyaan haddaan aniga ama ceyr aan qaadanayo ama welfare-ga aan qaadanayo saameyn ma igu yeelanaya haddaan isku dayo inaan wadani noqdo ama sharciga weyn aan buuxsado mid ugu horeysa sharcigan saameyn kuma laha dadka oo green card ka haystaan iyo dadka qaxootiga ama refugees-ka ama dadka asylum-ka ku imaadaan oo wadanka joogan ama wadanka soo galaan oo nabadgelyo weydiistaan oo wadamo kale oo dhib aska jira ka soo carreen sida Soomaaliya iyo wadamo la mid so mid ugu horeysa inaan fahamno waxa waaye qofka hadduu green card hayso wadanka joogo sharcigan saameyn kuma yeelanayo haddaas asylum as ku imaaday ama asyli as tahay wadanka joogtid sharcigan adiga saameyn kuma yeelanayo haddaas lagu keenay oo ama xaaskaada ay ku keentay ama ninka ragga oo xaaskiisa keenay oo green card haysta warciga sharcigan also kuma yeelanayo saameyn dadka sharciga loo diiday oo wadanka joogan oo TPS-ka waxa la dhahaystaan ama temporary protected status haystaan kuwa haysta oo cusboonaysiinaya ama kuwa marka ugu horeysay codsanayeen kulligood saameyn kuma yeelanayo sharcigan dawladda Mareykanka oo hadda dawladda haysata wadanka ayaa soo baasmarisay oo looga talagalay dadka sharciga baday sharci codsanayeen in looga diido laakiin waxay ahayd bisha 15 inuu sharci noqdo oo bisha shanaad hadda 15keedii la soo dhaafay laakiin ka hore weegi ka horeey jamcahe ya maxkamad ayaa go'aan gaartay oo istaajisay sharci asiga hay inaan la isticmaali karin oo dadka sharci looga diidi karin sida darteed hadda sharci asiga hay lama isticmaali karo oo dadka sharci looga diidi karo dad badan baa isweydiiyo oo sharciga uu saameyn ku yeelan kara dadka badi ad saameyn ku yeelan kara waxa waaye dadka viisaha codsanayeen oo wadamada kala joogan dadka wadamada soo galayeen ama wadamo aan visa looga baahnayn ka soo galayeen sida hadda European countries ka kaleeto ama wadamada European-ka dadka ka soo galayeen waa loo isticmaali karaa oo qofka hadduu wadanka soo galayo oo isku dayo inuu wadanka joogo public charge-ka waa loo isticmaali karaa ama qofka wadanka gudihiisa joogo oo visa ku soo galay hadduu isku dayo inuu sharci wadanka ka qaata sharcigan waa loo isticmaali karaa su'aasha kale oo la weydiiyay waxay ahayd maxaa dadka dhib hoos u keeni kara sharcigan hadda la block garay haddii aan la block garayn lahayn maxaa dhib u keeni karaa dadka badi
dadka badi sida hadda Soomaalida badi waxay ku joogaan asylum iyo refugee ama qaxooti ama dad isdhiibi waay badidood. dadka ma fahamsana sharcigan so qof kasta wuxuu u malaynayaa sharcigan inuu ayaga saameyn ku leeyahay laakiin sharcigan dadku saameynayo waa dad yar marka loo fiiriyo dadweynaha Soomaalida ama ummadaha kale oo wadanka degan. waa dadka viisada ku soo galayeen oo wadamada kale viisa ka codsanayeen oo safaaradaha soo marayeen badi loo isticmaali karaa. dadka ay dhaleen dadka sharciga ku leh Mareykanka sida haddaan ani cunug dhala oo cunugii isku nool yahay wadan kale oo isku day inuu codsado sharci inuu ka qaato wadanka asagoon joogin looma isticmaali karo sharcigan because qofka cunugaas aabihiisa wadanka Mareykanka sharci ku leh ama citizen so haddaad waalidkaada citizen yihiin oo wadan kale joogtid oo sharci dalbatay sharci inaad imaadid sharcigaas laguma isticmaali karo. sharcigan weligiis buu jiri jiray waa waxa loo isticmaalay affidavit of support-ka marka hadda dadka loo dacwoonayo oo kaleeto waxaa la buuxiyaa waraaq la yiraahdo affidavit of support si as qofkaas markuu imaado wadanka korfuul ugu noqonin ama aad ceyr u dalbanin ama as wadanka aad korfuul ku noqon karin. so marka waraaqda la buuxinayo waxaa la leeyahay qofkan wadanka markuu imaado wadanku korfuul kuma noqonayo ama uma baahanayo wadanka inay caawiyaan. su-aasha kaloo hadda la weydiiyey waxaa waaye sharcigii hadda waa la istaajiyey maxkamadda oo Mareykanka oo gobolka New York ku taal ayaa istaajisay inaan la baas marinin marka hadda waa temporary block ay dhahan ama preliminary injunction. so preliminary injunction waxaa waaye wax oo laakiin aan permanent ahayn laakiin oo muddo looga talagalay. so sharciga hadda maxkamadda istaajisay laakiin waa la appeal gareyn karaa waxay aadi kartaa maxkamadda sare ama maxkamadda Court of Appeals-ka ama maxkamadda wadanka ugu sareyso oo Supreme Court-ka la yiraahdo ayakaana go'aan ka gaari karaan. laakiin hadda siday tahay ama hadda sharciga siduu yahay dadka looma isticmaali kara oo lama dhihi kara public charge-ka waa la isticmaali karaa oo ama immigration officers ama dadka immigration ku shaqeeyaan ma isticmaali karaan si ay dadka sharci ugu diidaan. dadka Soomaalida ama ummadda kale oo Soomaaliya ku hadasho oo wadanka joogto waxaan dhihi lahay noloshiina kuma xirna sharcigan dad baa looga talagalay dadka in laga naxiyo oo maaragtay ay cabsadaan ana looga talagalay wax laga cabsadana maaha. wadankan weligiisba wuu soo jiri wuuna soo jiri doonaa dadkana waa loo isticmaali jiray sharciga in maaragtay lagu cabsisiiyo oo maaragtay ay kaga baqaan inay qaadanin wax ay xaq u leeyihiin. waxa aad qaadanaysid ama asayli ahaaw ama qof viisa ku imaaday ahaaw ama qof oo temporary protected status haysta ahaaw ama qof green card haysta ahaaw laakiin wixii aad xaq u leedahay waa inaad qaadato cidna kaama celin karta. waa dad baa isku dayay inay kaa celiyaan ummado waaweyn oo anaka naga badan oo wadamo kale oo ka kala imaadeen ayaa la isku dayay in maaragtay sharci loo isticmaalo oo la dhibo sida hadda Irishka oo kaleeto ama Italianska oo kaleeto ama dadka Yahuudda ama Jewska iyo Japaneeska dad badan loo isticmaalay anaka naga horreeyay ma aha inaan anaka noloshan ka istaagno oon dhahna sharci baa noola isticmaalaya madaxweynaha sharci noo isticmaalaya maaragtay waa cabsanaynaa noloshiina inaad sidaa ahayd aad ugu noolaatiin waaye waxaad wax ka qaban kartiin aad wax ka qabantiin waxaad wax ka qaban karin aad isku dayeen inaad wax ka qabatiin noloshiina aad si wanaagsan oo maaragtay wadankii wax soo gelin leh iyo dadaal iyo maaragtay hard work waxay dhahnaa Ingiriiska inaad samaysaan oo isku daydaan inaad idinka wax qabsan kartaan. Ingiriiska waxay dhahaan you don't get what you want, you don't even get what you deserve, you get what you deserve that you fight for. waxay ka macdan tahay taas markasta waxaad rabta ma helaysid waxaad xaq u leedahayna ma helaysid waxaad xaq u leedahay oo u dagaalantaad helaysaa marka wixii idinka xaq u leedihiin haddaad u dagaalantiin waa helaysaa laakiin haddaad ka saaxataan oo waa nolodiida aad tiradeen cidna ma siinaysa cidna ma soo dhicinays marka intaas aan kaga baxaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.